saaka halkan shirkan jiraayid ee aanu ku qabanay ujeedadiisu waxay tahay inaanu kaga hadalno nabadgelyada magaalada Boorama iyo guud ahaanba gobolka oo bariyahan dambe waxyaabo badan laga sheegayay kadib dhacdadii ka dhacday saldhigga ee Boorama falalkaas oo run ahaantii dadka shaki geliyay ayaa waxaan ugu sheegaynaa maanta bulshada awdal iyo bulshada reer Somalilandba inaanan marnaba annagu haddaanu dhaqankii nahay aanan u dulqaadanin in falal ka soo horjeeda nabadgelyada laga fuliyo gobolka hadday hore u dhacdayna waanu ka soo horjeednaa wax dambe oo aanu ku ogolayna ma jirto nabadgelyada gobolka iyo guud ahaanba Somaliland waxaan leenahay waa in loo soo taagnaado loo soo jeedo annagu haddaanu nahay duqeydii gobolka waxaan u sheegaynaa dadka ku mashquulsan inay fadqalalo iyo nabadgelyo darro ka abuuraan gobolkan inaan marnaba loo dulqaadan karin shacabkuna meel uga soo wada jeedsanin tii hore u dhacday na waanu cambaareynanaa cidda arrimaha ku foojiganna waxaan leenahay ha ka waantoobaan haddaanu annagu nahay duqeydii gobolka waxaan u taaganahay nabadgelyada gobolkan waa gobolkii nabadgelyada magaalada waa magaaladii nabadgelyada wax dhibaato ah oo loo baqa oo ka jiraana ma jirto shacabkeeda waxaan leenahay nabadgelyo ku jooga hadduu yahay nin u dhashay iyo hadduu u yahay nin degaan u yimidba waxaanu leenahay waa nabadgelyaan u taagannahay waxaa yarana dhacayna maaha wax dhibaato weyn oo inoo keni waananu ka dardaarana arrinkaa annagu haddaanu duqeydii nahay diyaar baanu u nahay amniga in laga shaqeeyo xukuumaddana waxaan leenahay amniga iyadaa ku shaqale xukuumaddu waa inay amniga gacanta ku qabataa wixii khalkhal wada ee nabadgelyada ka soo horjeedana waanu ku garab taagannahay inay arrinkaa laga wada shaqeeyo waa nabad baan leenahay wax dhibaatoo jiraa ma jirto mar walbana saasaanu gacanta ugu haynanaa shacabku sidaa ha ku seexdo ha ku soo tooso wasalaamu calaykum waraxmatullah inaanu ka hadalnay laba erey oo runtii maalmihii ugu dambeeyey hareeyey ma garanaysaa gobolka awdal siiba magaalada Boorama labada arrimood oo ahaa runtii ariga koobaad oo ahaa nabadgelyada oo dad badan su'aalo badan ay naga weydiinayaan magaaladan oo runtii magaalo aad iyo aad la iskugu yimiday oo ummadii ma garanaysaa ay soo wada degtay oo wanaag iyo farshaxan badan ka muuqdo ayaa bariyaa waxa la weydiinayay su'aalo leh xagga nabadgelyada waxaan u sheegaynaa nabadgelyada inay caddahay warkeegu in nabadgelyada ay sugan tahay inay wanaagsan tahay waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo nabadgelyada looga baqayo dhibaato inay geliso inay iska ilaaliso nabadgelyada magaalada inay aad iyo aad iska ilaaliso waddanka waxaan leenahay ma ogolin in ay nabadgelyo darro ka timaado halkan ma ogolin raallina kama nihin hadday shakhsiyaad ku hawlan ay jiraan waxaan leenahay hawshaa iyadaa dib ha looga laabto hawshaa iyadaa yaan lagu soo degdegin hawshaa iyadaa dib ha looga laabto baan leenahay qodobka labaad inta badan waxa mar walba la isdhexalgeliyaa waxaan meel ka wada bilaamin runtii annagu haddaan nahay odayaasha muddo badan waxaanu ka hadli jirnay ama xukuumadihii iska dambeeyey aanu ka wada hadli jirnay saami qaybsi iyo awood qaybsi iyo hawlo caynkaas qaybsi ilaa imika way taagantahay runtii ilaa hadda waa taagantahay balanna way ka taallaa waxa weeye waxaan rajaynaynaa inay sida u dhammaato hawshaa iyadii hawl meel kale ku maqan maaha hawl cid kale wakiil ka ahayd maaha waxaa ka wakiilahaa duqeydayadaa aqoon-yahanka in allaali intay ka hadli jirtay hawshaa gacanta ku haysayba ayaa wakiil arrintaa waxaan u sheegaynaa bulshada horta waa maanta waxaan haynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin nabadgelyo weeye dhulku nabadgelyo cidna looga daba fadhiisan maayo wadanka
gobolka nabadgelyadiisa waddanka cid looga daba fadhiisanaya ma jiro waa nabadgelyo waana nabadgelyo cid laga baryayaana ma jirto alxamdulilah rabbilcaalamiin horumarka waddanka nabadgelyada cid laga baryaya looga daba fadhiisanaya ma jirto waddanku waa nabadgelyo horena wuu ahaa maantana wuu ahaa ciddii waxaa ka shikisan ama khalqa qabtaa ha dhegaysta waa nabadgelyo haddaan nahay duqeyda halkan maanta iskugu nimidnay waxaan ummadda u sheegaynaa inay siduu gobolka horeba u ahaan jiray awdal iyo intii hal maasha intii horeba u ahaan jiray inay nabadgelyo tahay aanu ku buurinaynaa waxaad ka baqdaan iyo wax aad khoofoo ka jira inaanu jirin alxamdulilah rabbil caalamiin maanta barwaaqan ku jirnaa roobkii baa inoo daay si fiican baan milowya cadda ilaa iyo maxaan ku leeyahay xuduudaha uu leeyahay gobolkii awdal loo odhan jiray annagu nabad baan ku ognahay haddaan nahay duqaydidii amaase salaadiintii halkay wax ka dhacaanba tegaysay annagu nabad baan ku ognahay waxaan ku ognahay barwaaqaan ku ognahay harowmar baan ku ognahay maxaan ku leeyahay dana badan oo maxaan ku leeyahay gobolka u soo biiray oo socdaan ognahay wax dhiba oon ognahay ma jirto hadday dhibi soo baxdo oo laga shikiyo oon maxaan ku leeyahay aragno dadka hadlayaa waa annaga dadka qaylaya waxaa baa jira odhanayaa waa annaga dadka maxaan ku leeyahay guntanayaa waa annaga dadka loo daba fadhiisanayaa waa annaga waxa weeye xukuumaddayada iyo wasiiradayada iyo maxaan ku leeyahay nimanka la yidhaaho ciidamada dadka adeegsanayaan noqonaynaa annagu laakiin dhulku waa nabad ilaahay annagaana dhib kasta ugu horrayna kalkay dhacdo annagu nabad baan ognahay wax qashqashana ma ogolin hadday xishooyi dhaweyto wax yara dhecdhaceen dib dambe inay uga dhacaan ma ogolin hadday dhacdana dhinac baanu ka soo wadannahay dhinac baan ka wadannahay xag baan ka wada maraynaa in yaroo yar uga dulqaadan mayno waayo dalka gobolkan waxaa looga bartay nabadgelyo iyo harowmar iyo ummad ilaahay oo ku wada xanta way buuxdaabaa la yidhi in wax laga sheego dhiba inay ka jiraan laga sheego goboladan salaliya awdal waxa weeyaan waxaa waxba kama jiraan waa saxun wax u sheeg haddii caruur qashqashaada habeen laga sheegay waxa weeye waxaas waxba kama jiraan ninku hadduu seexdu soo tooso waa ninkii uun halkani waa nabadii uun waxaanu aragnaa dadka wax ka yar sheegaya inuu isagu xumayn yani uula jeeda ay tahay annagaan ogolayn dhaqanka yagana maaha wixii ay ahaan jirtay bay halkani tahay waxaanu leeyahay bulshada reer awdal waxaan leeyahay waxaan ugu baaqaynaa leeyahay waxaad ku caanamaasheen nabadgelyaad ku caanabaasheen waad ku dhaqateen waxbaad ku barateen alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa ka hadli jiray bariyihii dhaweyto abaara saddex ka hadlaynay abaartii ilaahay naga dul qaaday ilaahay ha loo mahadnaqo ilaahay ha loo noqdo buunbuunitana ha la daayo ha loo midoobo nabadgelyada iyaan la ogolaanin wixii burburinaya nabadgelyada waa inaan u midownaa dhalinyartu waa inay u midowdaa dhammaan waa in loo midoobaa culimadu waa inay u midowdaa culimadu way ka hadashay oo doorkoodii way qaateen masaajid walba way ka hadleen annagu baryahan haddaad lahaydeen maxaad u aamuseen oo la shikiyey inay wax jiraan waan u taagannahay nabadgelyada waan u taagannahay 24 saacadood gudtana waan ognahay nabadgelyada awdal wax alla wax ay qoraysaa ma jira cid wax yeelaysaa ma jirto waan isku taagaynaa haddii ilaahay yiraahdo han u midowna nooga horeeyaan leeyahay dhalinyarada nooga horeeya dhagihii dayayna berberin waxa la sheegayaa waxba ha u qaadanina waxa loo baahan yahay Soomaali baa isku tibaday halkan waxa loo hanweeyahay nabadgelyadeena waxa loo hanweeyahay gobolka intii soo degtay baahin in kala fara badan baa socota oo soo socota waxay soo galiyaan dadkaasi dhaqaale